السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال idil ahaantiinaba meel kasta oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaarayo halkaas sida tooskeena ugala socotaan waa Shumis TV ku soo dhawaada tabinteena qodobada aanu idiin soo gudbin doona waxaa kamid ah maxaa ka jira wararka sheegaya in baarlamaanka dalka Ingiriiska ay ka doodayaan dhawaan in Soomaaliland loo aqoonsado dal mase muuqata ifafaalaha Hargeysa dunida galbeedka marka ay u sheegi karto inay tahay dal isku filan oo Soomaaliya inteeda kalena ka maarmi karta hadii la siiyo ictiraaf caalami ah warbixin la xiriirta abaabulka fadhiga baarlamaanka UK dooda qorshaha qadiyada Somaliland abaabulka qarannimo ee socda ayaanu eegi doonaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble hogaamiye loo haystay dhexdhexaad doorashada u siman markaana dhankiisa cadaalad in laga doono ay ahayd oo durba la soo sheegayo in lagu eedeynayo boobka kursi xildhibaan Rooble madhiiqa ayuu lugaha kula jiraa madhaqdhaqaaq siyaasi ayuu bilaabay madamac doorasho ayaa dhankiisa soo aaday warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxa kale oo aanu idiin soo gudbin doonaa weerar sabay dhimasho iyo dhaawac badan leh oo lagu qaaday Abu Dhabi iyo Dubai oo faahfaahin ka soo saartay dhacdadaas ayaanu eegi doonaa u diyaar garooba qodobadaas oo dhameystiran goor dhow hadii alla laga helo markale kulan wacan dhamaantiin badawadayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si walba oo muuqaalkeena idiin soo gaarayo halkaas sida tooska inagala socotaan waa Shumis TV intaasi aad daawateena waa qaar kamid ah qodobadii ugu waaweynaa soo dhawaada Hargeysa 30 sano wali ubay helin ictiraaf buuxa cidi dal uma aqoonsan marka loo eego dunida kale waa ay gaaf wareegaysa albaabadadow waa ay garaacaysa koonayaal kala duwan waa ay socdaalaysa safar badan si ay u hesho sahan siyaasadeed quusta ka badbaadin kara dadkeeda koob iyo 90kii bishii May 18keeda ayay Somaliland ku dhawaaqday inay madax banaanadeedii kala soo laabatay Soomaaliya inteeda kale wixii inta ka dambeeyana waxay isku aragtay ama ay isu haysatay inay tahay dal gaar ah jamhuuriyad kala dhexdeeda ka dhex samaysantay yacni dunidu waxay Somaliland u aragtaa gobol kamid ah jamhuuriyadda Soomaaliyeed reer Hargeysa xukuumadoodu waxay isu aragtaa iyaduna inay tahay jamhuuriyad ka soo dhaxbaxday jamhuuriyaddii ay ka tirsaneed ee Soomaaliya marka dib loo eego sooyaalka taariikhda dowladnimada Soomaaliya 1960kii bishii June 26keeda gobolada waqooyi waxay xornimo ka qaadeen gumeystii Ingiriiska oo dabcan markaas goboladaasi xukumayay calanka markaas laga taagay magaalada Hargeysana waa calanka Soomaaliyeed ma jirin calan aan ahaynka oo Hargeysa ay ka taagatay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa kanasiibka nasaar waxa uu ahaa markii calanka Somaliland ama calanka Ingiriiska ee Somaliland markaas dabcan ka surnaa laga saaray oo la saaray kan jamhuuriyadda Soomaaliyeed dooda qadiyada qiimaha qarannimo halkaas iyo dib loogu celinaya si kastoo ay tahayse Hargeysa markaasi dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisay midnimo Soomaaliyeed wadajir Soomaaliyeed iyo in wax la wada yeesho 1 July bil kadib 1960kii gobolada koonfureed ayaa iyaguna gumeystii Talyaaniga ee xukumayay ka qaatay xorriyadooda isla 1 Julayna waxaa midoobay labada gobol waqooyi iyo koonfur jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa ka samaysantay madaxweynihii ugu horeeyay ee jamhuuriyaddu ay yeelatana waa Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde wixii markaa ka dambeeyay Somaliland nidaamkaasi way ku jirtay kii Aadan Cadde kii Cabdirashiid ilaa kii militariga oo gabagabadiisu ay jabhado samaysmeen nidaamkooduna uu markaasi bilaabay in ay ka hoos baxaan nidaamka taliska dhexe ee militariga Soomaaliya dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wixii markaa ka dambeeyay Somaliland waxay aaminsan tahay in loo geystay gabood fallo gardarro dulmi burburin iyo dayacaad xagga siyaasaduna waxa ay tiri koonfur ayaa xilalkii iyo nacfigii dowladnimadaba kaliya isku koobtay Hargeysa waxaa loo arkay dad aan mudnayn hogaamin iyo masirka talin taasna waxay muujinaysaa way yiraahdeen wax aan habooneen Maxamed Ibrahim Cigaal oo ah nin ka soo jeeda waqooyiga sidoo kalena wafdigii midnimada iyo sidoo kale dabcan isdhexgalka labada gobol hormuud u ahaa ayaa isagu waxa uu noqday ra'iisul wasaare markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu madaxweyne ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalka laakiin waqti kooban kadib afgambigii ayaaba ka dhacay dalka oo waa la dilay madaxweynihii Cigaal oo dalka dibadiisa ku maqna markii uu soo laabtay xabsiga ayaa lagu tuuray muddo dheer ayuu xirnaa taas oo muujinaysa in reer waqooyiga qudhooda ay ka suluugsan yihiin habka hogaaminta
siyaasiyiinta iyaga ka soo jeeda oo aan wakhti fara badan u helin inay maamulaan Soomaaliya. Si kastaba Somalilan 30 sano ayay bannaanka joogtaa. Dunidu ma aqoonsan Afrika, Asia, Khaliij markay noqoto, Yurub taas kale, Australia iyo Ameerikuba, balse waa la maaweeliyaa. waxaase loo sheegaa inay hayso dhaba quman oo ay caalamka u heli karayso ictiraaf buuxa. Midowga Afrika waa laga digday Somalilan codsigeeda, waxaana loo sheegay inay muhiim tahay in ay ku laabato jamhuuriyadda wixii tabasho iyo dareen ah ee jirana halkaasi lagu xaliyo. balse Hargeysa weli way is adkeynaysaa, waana ay ka qajilaysaa inay aqbasho aragtidaas, sababtoo ah shacbiga ayaa 30 sano ka badan lagu maaweelinayaa. dal baanu nahay, aqoonsi ayaanu helnay, dunida ayaanu og, xamar ayaanu ka tala baxnay iyo qaar kaloo badan. waxaase muuqata guud ahaan dhacdooyinkaas inay yihiin kuwa ka fog xaqiiqda iyo jiritaanka xogaha saxda ah marka loo eego xaqiiqda dhabta ee Hargeysa siyaasadda arrimaha dibadda ay ku salaysan tahay waqti xaadirkani. maanta baarlamaanka UK ayaaba dood ku saabsan qarannimada Somaliland la keenay. baarlamaanka UK ayaa la sheegay in dabcan lagu wado inuu ka doodo muddo kooban uu dhageysto dood ku saabsan madaxbannaanida Somaliland, taas oo uu soo gudbin doono xildhibaan lagu magacaabo Kevin Williamson oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka UK. doodda oo ah mid uu mudanaha ku soo gabagabayn doono fadhiga maalinta ayaa la filayn in wax go'aan ah uu ka gaaro baarlamaanka. ma ahan markii ugu horeysay ee baarlamaanka UK uu dhageysto dood ku aadan aqoonsiga Somaliland oo sheegatay in 1991 ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. bishii December 2019 ilaa 11 xildhibaan oo u badan xisbiga Labourka ayaa gudbiyey mooshin ah in baarlamaanka UK uu aqoonsado Somaliland maadaama ay ahayd maxamiyad ay Britain xukumi jirtay. mid ka mid ah xildhibaanadaas ayaa markii dambe ka noqday mooshinka. sidoo kale golaha deegaanka ee magaalooyinka Cardiff, Sheffield iyo sidoo kale Birmingham ayaa horey u shaaciyay inay aqoonsan yihiin madaxbannaanida Somaliland, walow taasi aysan wax badan soo kordhin. go'aanka dowladda UK, xukuumadda Britain ma aqoonsano gooni-sutaagga Somaliland sida ay marar badan sheegatay. dabcan Vicky Ford oo ah wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika ayaa bishii November 2021 sheegtay in UK ay Somaliland aqoonsan tahay oo kaliya marka ay go'aan noocaas ah gaaraan Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrikaanka ah. wadahadallo u dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa oo looga arrinsan lahaa arrinta Somaliland ayaa dhowr jeer dhacay, inkastoo aanay wax weyn soo kordhin. ma jiro dal ka tirsan caalamka oo 3 sano ee lasoo dhaafay waddan madax bannaan u aqoonsatay Somaliland. weli waxaad la socotaan tibinteena markaana Rooble iyo eedaynta loo jeedinaya ayaanu eegaynaa inuu bilaabay boob doorasho. suldaanka beesha dabcan Habar Cafaan oo ka mid ah beelaha dir waqooyi, Suldaan Abiib Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ra'iisul wasaare Rooble ku eedeeyay inuu boobayo kursiga hoob 215 oo ka mid ah kuraasta beeshiisa ee golaha shacbiga. suldaanka ayaa sheegay in laga been abuurtay oo magaciisa lagu saxiixay kursigaas, markii dambena ay ogaadeen in kursiga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu yahay go'aamiyaha kursigooda. sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in ilaa dowladdii lagu soo dhisay Carta uu saxiixa beesha soo ahaa, balse hadda go'aan laga gaaray mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee beeshiisa iyadoo aan waxba laga weydiin. beeshaynu 3 kursi ayay leedahay, mid ka mid ah waa la musuqmaasuqay. muddo dheer ayaan ka daba wareegaynay kursigaas, laakiin kadib waxaana loo sheegay in liiska cuqaasha uu soo qoray ra'iisul wasaare Rooble. waa yaabay ma suldaankii beesha ayuu Suldaan Abiib Maxamuud yiri sida ka muuqata. sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in guddiga doorashada markii ay wax ka weydiiyeen arrintan loo sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu soo gudbiyey liis uu ku jiro magaciisa Suldaan Abiib, wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay dulmi laga galayo beeshiisa. shalay ra'iisul wasaaruhu wuxuu lahaa doorasho boob maya, isaga ayaa boobka nagu bilaabay kursigeena si cad ayuu u yiri anigaa qaatay, mas-uuliyiintii iyo dadkii u tagayna waxa uu ku yiri iska samra oo ka hara kursigani, go'aankiisa iyo qadiyadiisaba aniga xafiiskayga ayay taallaa. suldaanka ayaa caddeeyey in kursiga hoob 215 uu ka boobay ra'iisul wasaare Rooble, isagoo uga dacwooday dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. dulmi, boob iyo dhac ayaa naloo geystay, mana yeelayno kursigaas Rooble ma leh cid xoog ku qaadan kartana ma jirto ayuu yidhi. Suldaan Abiib ayaa sidoo kale sheegay in ergada lagu qoray kursigaas ay ku jiraan xubno Itoobiyaan ah, erga Xabashi ah ayaa lagu qoray iyo sidoo kale hawiye suuq laga soo ururiyey.
ma wax aan yeeli karnaa ninka loo qoray kursigaani ma garanayo cidda uu yahay ayuu yidhi suldaanka oo muujinaya cabasho la xiriirta habdhaqanka xafiiska Rooble. ugu dambeyntii suldaanka ayaa sheegay in boobkaas aysan ogolaan doonin oo meel kasta ay ka dacweyn doonaan ra'iisul wasaaraha isagoo Rooble ugu baaqay in masiirka kursigooda Hoob 215 uu soo celiyo. weli waxaad la socotaan tibinteena qaybihii dambe ayaanu soo gaarnay bal markaana aynu eegno faahfaahinta weerarka khasaaraha badan dhaliyey. qaraxyo ka dhashay diyaarado drone ah ayaa ka dhacay magaalada Abu Dhabi iyada oo Xuutiyiinta dalka Yemen ay ku dhawaaqeen hawlgal military oo ay ku fuliyeen dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. walxa yar oo duula ayaa la helay iyada oo 3 booyado shidaalka qaada ah ay ku qarxeen aag warshado ah, sidoo kalena dab uu ka kacay garoonka diyaaradaha sida ay sheegeen booliiska. 3 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyada sida ay sheegeen booliiska. dadka dhintay ayaa 2 qof waxay u dhasheen dalka Hindiya halka qofka kalena uu ka soo jeedo Pakistan. baaritaano hordhac ah ayaa tilmaamaya in walxaha yaryar ee la arkay ay ka yimaadeen diyaarado drone ah kuwaas oo ku kala dhacay 2 goob ay suuragal tahay inay sababeen qaraxyo iyo dab ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay booliiska. dhinaca kale Xuutiyiinta ayaa sheegay inay faahfaahin ka bixin doonaan hawlgal military oo ay sheegeen inay ka fuliyeen Imaaraadka Carabta, taasoo ka dhigan inuu ka sii daray dagaalka dabcan 7 sano ka socda dalka Yemen. ciidamada xoogga waxay ku dhawaaqeen inay saacadaha soo socda faahfaahin doonaan hawlgallo ka dhacay Imaaraadka. waxaa sidaasi barta Twitterka ku soo qoray afayeenka militariga Xuutiyiinta Yahya Sarre. Imaaraadka Carabta ayaa aad u yareeyay joogitaankooda militari dalka Yemen 2019 xilli la isu mari waayay dagaalka ayna sare u kacday xiisada gobolka iyo Iiraan. hase yeeshee waxay saameyn ku leeyihiin ciidamada hubeysan ee Yemen oo ay iyagu tababareen. wararkaas ayaa ugu waaweynaa dhacdooyinkeena aad kala socoteen Shumis TV daawadayaal. waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo nooli kulanti dambe oo xiiso leh.